Maraykanka, Israa'iil iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka waaga ayaa ku baryay kadib markii la ogaaday in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee IRAAN ay doonatay diyaaradda loo yaqaano J-10C ee ay farsamayso Shiinaha. Diyaaradan ayaa wacdaro ka dhigtay dagaalkii koobnaa ee dhex maray Hindiya iyo sidoo kale Bakistaan, waxayna dhulka soo dhigtay diyaaradaha reer galbeedka ay farsameeyeen ee dowladda Hindiya ay isticmaalaysay, gaar ahaan kuwa ay soo saartay dowladda dalkaasi Faransiiska. ciwaanada ugu waaweyn ee warbaahinta reer galbeedka iyo guud ahaan warbaahinta caalamkaba 24 saac ee la soo dhaafay waxaa ciwaan u ahaa in Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee IRAAN ay doonatay diyaaradda cajiibka ah ee J-10C ee dowladda Jaynaha ay soo saarto si ay u difaacato hawadeeda. Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee IRAAN dagaalkii socday 12 maalmood halka ay ka liidatay waxay ahayd dhinaca hawada, oo waxay awood u yeelan weysay inay joojiso diyaaradaha boqolaalka gaarayay ee cadowga ahaa ee hawadeeda dhex mushaaxayay. inkastoo ay sheegtay inay dhulka soo dhigtay qaar ka mid ah diyaaradaha casriga ah ee Israa'iil ay isticmaalaysay ee Maraykanka uu soo saaro ee lagu magacaabo F-35. si kastaba, Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee IRAAN ayaa hadda dardargelinayso wadahadal ay la leedahay dowladda dalkaasi Shiinaha si ay u hesho diyaaradaha dagaalka ee lagu magacaabo J-10C. kadib markii uu burburay heshiis ay la gashay Ruushka oo muddo dheer ay ku sugaysay inay ku hesho diyaaradaha dagaalka ee Ruushka farsameeyo ee loo yaqaano Su-35. go'aankan ayaa yimid kadib dagaalkii socday 12 maalmood ee dhex maray IRAAN iyo sidoo kale Israa'iil iyo Maraykanka, ka oo si weyn u muujiyay dhinaca nuglaanta ciidamada cirka ee IRAAN iyo sidoo kale nidaamyadooda difaaca cirka ee duugoobay. waxaana IRAAN markan ay doonaysaa in lama huraan ay tahay inay xal u hesho dhinaca difaaca hawada ee dalkeeda, maadaama cadowgeeda u haysto diyaarado casri ah. waxayna doonaysaa inay hesho raadeero iyo sidoo kale diyaarado casri ah oo ay kaga hortagi karto diyaaradaha cadowga ee hawadeeda qulqulayo. diyaaradaha J-10C ee Shiinaha ayaa leh raadeero casri ah iyo sidoo kale gantaalo aad u horumarsan, kuwaasoo IRAAN ay rajaynayso inay kaga hortagto awoodda cirka ee Israa'iil ee Maraykanka uu si weyn u daba taagan yahay, islamarkaana uu siinayo qalabkii ugu dambeeyay. ciidamada cirka ee IRAAN ayaa ah kuwa aad u duugoobay, waxaana dhibaato weyn ay kala kulmeen dagaalkii socday 12 maalmood, ka oo lagu arkay awoodda difaaca ee cirka ee Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee IRAAN inay tahay mid aad u liidato oo baylah ah. heshiiska cusub ee Shiinaha iyo sidoo kale IRAAN ayaa muujinaya sida ay Shiinaha ay u sii kordhinayaan saameynta ay ku leeyihiin gobolka Bariga Dhexe. isbeddelka Tehran ee ay u jahaysatay dhinaca Beijing ayaa muujinaya dadaal degdeg ah oo IRAAN ay ku doonayso inay ku casriyeyso diyaaradaheeda dagaalka ee duugoobay xilli xiisadda gobolka ay cirka isku sii shareerayso